safarkiisa gaalkacyo waxaa ka soo hormartay geeridiisa. allah u naxariistay farxaan xirsi wardheere waxa uu ahaa darawal wadi jiray mid ka mid ah gawaarida aada safarada dhaadheer. xalay salaada maqrib ayuu ka baxay bosteejo baabuurta laga raro oo ku taalla baaruwax. gaariga farxaan uu wadaha ka ahaa ayaa ahaa liile calaawi, waxaana uu u rarnaa magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug. koox burcadah ayaa gaariga jidka u gashay xilli uu kaabiga ku hayay cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe. salaad axmed weheliye waxa uu la dhashay farxaan xirsi wardheere. waxa uu faahfaahin iga siiyey sida ay wax u dhaceen, isagoo sheegay in gaariga la rasaaseeyey uu ku geeriyooday walaalkiis, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 2 qof oo ka mid ah rakaabkii gaariga saarnaa. salaad waxa uu sheegay in waddadaasi xeebta marta ee u dhow cadalle ay ka jirto dhibaato badan, dhiigga shacabka ee aan waxba galabsanna si micno darro ah loogu daadiyo. waxa uu sidoo kale sheegay habeenka ugu yar ee aan waxba lagu dilin waddadaasi 2 qof lagu dilo toddobaadkan gudihiisa. waxa uu sidoo kale tilmaamay in 7 qof isla waddadaasi lagu dilay kuwa oo aan waxba galabsan. allah u naxariistay qoyskii ehladu ka geeriyooday farxaan xirsi wardheere cabdiyade oo ku geeriyooday habeenkii xalay isagoo maraya deegaanka cadale oo kana anbabaxay xamar oo waday gaari rakaaba. walaalkeen wuxuu ka tegay ilmo 10 ciyaal ah. wuxuu kaloo gacanta ku hayay adoog iyo habartii oo quuriyaan ah oo deegaanka godin laba yaallo aabba waa quuriyaan iyo hooyadiis ayuu gacanta ku hayay. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. sabab qaaliya runtii ayaa naga baxday oo halbowle ah. dad altriigana go'ay, laakiin cod walba geeri bay dadabi doontaa insha allahu. ilaahay baa ballan qaaday. waxaan rabnaa markayna taxsidaas ilaahay u naxariisto, annakana gadaashiina ma fidneeyo. samar iyo imaanna ilaahay dadka ha ka siiyo. farxaan 28 sano jir buu ahaay. wuxuuna ku dhashay deegaanka godin laba la yidhaahdo ayuu ku dhashay farxaan. marka kabacdi wuxuu iska noqday dilin darawala. baabuurtan safarada uu wadi jiray. gaariga ou gaday ou saaka waday daraad u gaday. daraad ayuu gaday leylada gaariga lagu dilay xalay. daraad buu gaday farxaan. go-i ugu horreeyey ama markii ugu horreeyday oo baxo gaarigana ou ahay awal caasile iyo baabuur kale uu wadi jiray uu lahay. marka gacanka xaq daran baa disha. ilaahay aan u naxariisto, samar iyo imaanaha naga. salaad axmed weheliye oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in dadka dilka geysanaya ee caadaystay daadinta dhiigga shacabka ee waddada xeebta cadalle ku safraya ay yihiin dad la yaqaano, waxaana uu codsaday in cadaaladda la hor keeno dadkaasi si looga qabto ugu yaraan dadka ay dhibaateynayaan. waxaan ka codsanayaa dowladda federaalka oo soomaaliyeed sida madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo, ra-iisul wasaare khayre, guddoomiyaha baarlamaanka, guddoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka amniga qaranka maxamed islow ducaale, in nimanka dilay farxaan kaliya ma dilin. waxaa jooga niman ay xibnahoodii qaaliga ay hore ugu waayo, gacmo ka go-een, laguhu ka go-een, xibnahii taranku xabad ay uga jareen. waxaa jooga kuwa ay maalkoodii dhaceen oo dhibanayaala. waxaa jooga kuwa ay gaadiidkoodii gubeen. waxaa jooga kuwa sideenoo kale wiilkoodii ama waalidkood loo dilay. waxaan rabnaa in nimankaas waa niman la yaqaano. deegaanka cadale ayay fadhiisin ku leeyihiin, ama ha ahaadeen macawisley ama ha ahaadeen ciidamada qayb ka mida. waa farac ciidamada dowladda federaalka oo cadale fadhiga kula ka mida. waxaan ka codsanaynaa in cadaaladda la hor keeno. maalinta aan wax lagu habeenka aan wax lagu dilin labaa lagu dilaa. habeenka wax lagu dilana nimaa lagu dilaa. habeenka kalena 3-4 baa lagu dilaa. waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo gacan ka geysan karta. nimankaas waa niman la yaqaan, waa niman caan, magacyadooda la haya qayb ka mida. waxaan ka codsanaynaa in dadka soomaaliyeed annaku lacag waa ogolayn. baabuurta baad baa laga qaadan jira lacaga. waa meel isbaaradu taaka u taalla. dil baa lagu daray, dil ayaa lagu daray, waa la adkaysan waayey. allaha u naxariistay farxaan xirsi wardheere waxa uu ahaa 28 jir ifka uga tagay 10 carruur ah. waxa uu sidoo kale u soo qaraab doonay hooyadiis iyo aabbihiis oo curyaan ah, kuwa oo ku nool deegaanka godin labe oo uu ku dhashay farxaan. si kastaba haatee haddii aan waxba laga qaban waddada xeebta ee marta cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa sii xoogaysanaya dunuubta laga galayo aadanaha ee waddadaasi ku safra.